surely now Spain have won the World Cup for the first time in history. Andres Iniesta has broken Dutch hearts. kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa soo gaartay gegada ay ku ciyaarto kooxda Chelsea Stamford Bridge iyadoo walwalsan walaac kadib barbardhac eber oo ka dhacay Camp Nou. waxa ahayd ciyaar aad u qalafsan. ciyaartaasi waxa ahayd mid adag, waxay ku bilaabatay si xun, wax shoog ah kuma aysan helin 90 daqiiqo gudahood kooxda Barcelona. Xavi ayaa waxa uu leeyahay dareenkaygu wuxuu ahaa 20 daqiiqo ee ugu dambeeyay waxay doonayeen inay kor u kacaan. dareenku runtii wuxuu ahaa waxay heli doonaan gool labaad, 2 ama 3. xitaa mararka qaar garsooraha ayaa ciyaarta dhinac u bedeli karo. waxaan ahayn 9 qof. ereyga Abidal ayaa inaga qaatay rooso. Abidal ayaa waxa uu leeyahay way iga careysiiyeen, laakiin waxa hubaal ah in saaxiibaday ay ciyaar adag la ciyaareen kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyagoo 10 nin ah. Iniesta isaguna waxa uu leeyahay dareenkaygu wuxuu ahaa ciyaartu way dhamaanaysaa, xiriir badanna waan dareemeynay. ma aqaan in ay ahayd daqiiqadii 92, laakiin waa xilligii goolka aan helnay isla markaana Chelsea aan macsalaameynay. BK ayaa waxa uu leeyahay waxa ay shoodka kaliya aynu ku tuurnay goolka. Samuel Eto'o Feliz ayaa waxa isaguna uu leeyahay Daniel Alves ayaa ii soo korosay, waxaan doonayay inaan maamulo, laakiin markii aan kubadda waayay Ezian ayaa iska sii lumiyay. kubaddana waxay ku socotay Messi ayaa markiisa yiri kubaddu way ii timid, waxaan ku sigtay inaan dhumino. dhab ahaantii waxaan raadinayay shood, laakiin kooxda Chelsea waa iga xirteen maadaama ay qaab difaac ku jireen. aad bay u adag tahay marka kubaddu ay ka timaado meel gees ah ama looq ah. kadib waxaan u baasay Iniesta, isaguna wuu shuuday, wuxuuna ka soo saaray gool cajiib ah. Abidal ayaa yiri Iniesta ayaa ina badbaadiyay dhamaanteen. sidoo kale Guardiola ayaa waxa uu leeyahay kaliya waqtiga saxda ah Iniesta waa uu iftiimay, guushina gacantiisa ayuu noo gaarsiiyay.